kulankan oo mid laba dhinac ah laguna qabtay Cape Town Hotel ayaa waxaa si wada jir ah u soo agaasimay bangiga caalamiga ee Absa iyo jaaliyada Safe Somali Community waxaana ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Cape Town ee dalka South Africa. qaybta hore ee kulankan ayaa bangiga Absa waxa uu fursado siiyay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida in ay furtaan akoonno ganacsiga oo ay lacagahooda ku xafidan karaan si sahlanta oo markii hore ay dhibaatooyin ku qabeen Soomaalida waxaana ka faa'iideystay bulshada fara badan oo jaanis u helay in shaqaalaha bangigaasi oo isla xilligaasi ay u furaan akoontiyo ay lacagahooda dhigan karaan. Saciid Maxamed oo kamid ah madaxda Absa Bank ayaa ka hadlay muhiimadda uu bangigooda fursadaha u siiyay Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika. dhibaatada ugu weyn ee mujtamaca Soomaaliyeed haysata gaar ahaan dadka ganacsatada waxa weeyaan iyada oo markaste la dabagalo oo dadka maaragtay tuugta iyo dadka dibloodayashu ay markaste lacagtooda ka dhacaan. Absa isagoo arinta ka duulaya waxa uu fudeediyay mujtamaca Soomaaliyeed ku dhaqan gobolkan Western Cape gaar ahaan iyo guud ahaan Soomaalida ama bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay wadanka ka degan yihiin oo ka ganacsanayaan in waraaqahooda qaxoontinimo ay statuska loo yaqaano ama section 24 in uu qofku uu ku furan karo account. gudoomiyaha Safe Somali Community Yusuf Umar Ahmed iyo xubnaha kale ee ururka qaybtii labaad ee munaasabada ka hadlay ayaa halkaasi waxay kaga sheekeeyeen waxqabadka ururka Safe Somali Community iyo sidoo kale imilooyinka ay higsanayaan sanadka soo socda hadduu alla idmo. ururkan hotelkan aan hadda fadhinaa lagu aas-aasay September 24keedii fulay waxa la yiri xantiisa ma moogo oo qof kastaba waa iska warhaysaa laakiin shalay waxaan wax u aas-aasna waxay ahaaday bulshada Soomaaliyeed haddii aan xataa laba qofood oo isla dhalatay inaan wax macna samaynayo aan ku soo kordhino. maantana waxaan hortiina ka ballan qaadayaa ururka in lagu sameeyo deeno reforming waxa loo yaqaano oo insha Allah ta'ala waqtiyada soo socoto dhamaan xibnihii qaybihii kala duwan ay ka koobnaayeen way fadhiyaan. waxaan isla qaadanay shalay waxaan wax u aas-aasayna waxay ahaaday Soomaali weyn inaan wax macna u sameeyay aan ku soo kordhino. saas daraadeed waxa laga yaabaa aaraab badan oo midkayna ka muhiimsan inay banaanka naga jiraan laga bilaabo caawa waxaan hortiina ka damaano qaadaynaa ilaahayna uu markaati ka yahay inaad afkaartiina ku soo biirisaan. waxaan jeclaan lahay inaan u mahad celiyo shirkadda Absa oo noo sponsortay shirkan aan caawa isugu nimid. First of all, I would like to congratulate and thank Absa Group, Barclays Group, the support that they have given our conference and the support that they are willing to do to give to all the Somali communities all over the country. And I would like to say you have given us your support and we will give you our support without reservation. You know, we are the Somalis, we come from the nomad society. And the only thing that the nomadies are good for is to pay back the support. That's the only thing that they are good for, nothing else. We are going to pay it back and we'll support you and we'll stand your shoulders until we reach our goals. ummadna badda diidaan helayn laba isduugtaaye docda waran laga saaray oo dilidu toogaysan adigoon dabaal garan bad weyn taagan dacalkeeda inaad moolka dalaq leedahay la isu diidayne ummadan wixii soo dejiyaan doorin hadalkaas dadkii aan miciis oo bidnaa nooga sii darane dhibka dawladda nagu dhigtay daanada iyo ciilka dulqaad baan isaga noolnahay dul jabaanahay duhur iyo habeen bay dilaan diracyadeenniye dareen baan ku wada jiibsanaa kuna dareernaaye. si kastaba haatee sanadii la soo dhaafay markii lagu dhawaaqay ururkan Safe Somali Community oo wax badan ka qabtay arrimaha Soomaalida magaalada Cape Town iyo guud ahaanba Soomaalida ku nool dalkan Koonfur Afrika. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, telefishinka qaranka Soomaaliya, Cape Town, South Africa.